qodobka shanaad haddaba shirweynaha wadatashiga puntland wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah ay saamilayda siyaasadda ee dalka isugu yimaadaan shir wadatashi si looga heshiiyo qaabkii lagu geli lahaa doorashada 2020 waxaana shirweynuhu soo jeediyey in dowladda puntland qaadato doorka qaran ee kaga aadan ayna fidiso gobol soomaaliyeed oo loo dhanyahay arrimaha federaalka dalka gaar ahaan wuxuu shirweynuhu walwal ka muujiyey gaar ahaan